saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Bilowga filimka waxaana la tusayaa haweeney nafta ka baxday oo sariirta dul jiifta ayadoo meyd ah. Intaa kadibna meydkeeda waxaa aragtay gabadheeda taasoo lagu magacaabo Ruus. Markaan xaaladda qofka qiimeynana waxaan ogaanaynaa Ruus hooyadeed inay maskax ahaan u jiratay markuu ninkeeda dhintay kadib. Haddana Ruus ayada kaliya ayaa la noolayd hooyadeed, sababtoo ah walaasheed ayada ka weyn way ka tagtay ayaga, nin ayayna ka raacday. Dhinaca kalena markii goobta la eegay waxaa caddaatay in Ruus hooyadeed ay qaadan jirtay kaniiniyaal si ay maskaxdeeda u dejiso. Maantana waxay qaadatay xaddi badan oo daawo ah taasoo sababtay inay dhimato. Haddana waqti badan ayaa ka soo wareegtay xilliga. Hadda uu sanadku yahay sanadda 2022, Ruus way kortay, waxayna noqotay qof weyn. Sidoo kalena waxay noqotay dhakhtarad ku takhasustay cudurrada dhimirka, waxayna shaqaysaa habeen iyo maalin. Sidoo kalena cilmi baarisyo badan ayay samaysaa si ay u hesho daawada xanuunka dhimirka, si uusan qofna ugu dhiman cudurkaas sida hooyadeed oo kale. Sidoo kalena waxay aad ugu dadaali jirtay dadka qaba cudurkaas si aysan daryeel xumo u dareemin. Intaa kadibna waxay la kulantay bukaan waalan. Mar walbana bukaankan wuxuu sheegi jiray in qof walba uu dhiman doono. Ruusna aad bay ugu baqaysay asaga. Sidoo kalena maalin kasta ninkan wuxuu ku celcelin jiray qof badbaadaya ma leh, qof kastana wuu dhiman doonaa. Intaa dabadeedna Ruus markay ninka hubisay kadib waxay u timid dhakhtarkii ayada ka sarreeyay, wuxuuna ayada u sheegay inay nasato oo ay gurigeeda aado, sababtoo ah shaqo badan ayay qabatay, maskax ahaan ayayna u daashay. Markay dhakhtarka dhegaysatana meesha ayay isaga tagtay Ruus. isla markiina waxaa isbitaalka la keenay kiis aad u culus, taasoo ahayd gabar lagu magacaabo Laura. Si la yaab leh ayayna u dhaqmaysay muddo dheer. Sidoo kalena dhakhtaradii ayada daaweynaysa ayay wejiga dubba kaga dhufatay, halkaa ayayna ku dishay. Intaa wixii ka dambeeyana Laura aad bay u sii naxday, waxayna dhumisay kontaroolkeeda. Intaa dabadeedna Ruus waxay qolka kula kulantay gabadhii Laura ahayd oo taagan qolka geeskeeda. Sidoo kalena gabadhu aad bay u cabsanaysa, wayna jiha wareersanayd. Intaa kadibna gabadhu Ruus waxay u sheegtay inay arki karto waxyaabo la yaab leh oo aanay cid kale arki karin ayada mooyee. Waxyaabahaas aan arkayana waxay iskugu kaysoo ekaysiinayaan qof kaste, hadduu yahay qaraabadayda, saaxiib iyo xitaa qof shisheeye iga ah aniga. Marmarka qaarna waxay iskugu kaysoo ekaysiinayaan shayaal aan noolayn, sida awowgay oo kale. Geeridiisu waxay ka dhacday hortayda markii aan yaraa. Sidoo kalena waxyaabahan waxay hortayda ku yimaadaan qaabab kala duwan. Waxa kaliya oo lagu aqoonsan karana mar walba uu ii imaado wejigiisa waxaa ka muuqata dhoola caddayn weyn. Sidoo kalena mar walba wuu dhoola cadeeyaa. Waxyaabahaana sidoo kale waxay rabaan inay jirkayga gudaha u galaan, sidoo kalena ay isticmaalaan siday doonaan ay iga yeeshaan. Waxyaabahaana sidoo kale waxay ii sheegeen inaan dhiman doono, waana sababta aan uga walwalayo asaga. Intaa dabadeedna Ruus markay dhegaysatay gabadha hadalladeeda oo dhan waxay ayada u sheegtay inaysan walwalin. Marmarka qaarkoodna maskaxdeennu sidaasoo kale ayay sawirataa. Haddana gabadhii mar kale waxay aragtay shaygii, aad bayna u argagaxday ayada. Sidoo kalena kursiga ayay ka dhacday, waxayna bilowday inay dib u gurato, sababtoo ah mar kale waxay aragtay ruuxaantii. Inkastoo caadiyan uusan qof kale qolka kula jirin Ruus mooyee, si lama filaana ayay si saa'ida ugu xanuunsatay ayada, aad ayayna u qaylisay. Sidoo kalena neefsashada ayay joojisay, afkeedana wuu kala furmay. Isla markii ay Ruus xaaladan aragtana waxay dalbatay caawinaad, laakiin markay gadaal soo fiirisay waxay aragtay Laura oo caadi noqotay, sidoo kalena bad qabta oo horteeda taagan. Intaana waxaa dheerayd dhoola caddayn weyn ayaa ka muuqatay wejigeeda, siday Laura horay ugu sheegtay. Sidoo kalena waxay gacanta ku haysatay jab dhalaa oo af leh. Intaa kadibna ayadoo dhoola caddaynaysa ayay dhuunta iska jartay gabadhii, sidaa ayayna ku dhimatay Laura. Laakiin xitaa hadday dhimatay gabadhii, weli dhoola caddayntii kamaysan dhammaanin wejigeeda. Ruusna markay arrintan aragtay way naxday, sababtoo ah maanta indhaheeda waxay ku aragtay qof kale oo dhimanayo. Sidoo kalena aad bay uga xumaatay inay arrintan aragto, balse waxay ahayd kiis kale oo horteeda ka dhacay oo ay waxba ka qaban weysay. Haddana si loo baaro kiiskan waxaa meesha yimi 2 askari oo boolis ah. Mid ka mid ah askartana wuxuu ahaa saaxiibka Ruus. Wax kasta oo ay Laura u sheegtay ayadana Ruus waxay la wadaagtay saraakiisha booliska. Intaa dabadeedna waxaan aragnaa meydkii Laura oo lagu daboolay maro, goynta darteedna waxaa ka muuqatay dhoola caddayn weyn oo dhiig leh. Dhinaca kalena Ruus markay guriga timid waxay aragtay ninkeeda iyo bisadeedii ay aadka u jeclayd. Wax walba oo maanta dhacana waxay la wadaagtay ninkeeda, si culayska ay dareemaysa ay iskaga fududayso. Dhanka kalena ninkeeda si uu xaaskiisa u
dejiyo wuxuu ayada u kaxeeyey casho meeshaana waxay kula kulmeen Ruus walaasheed iyo ninkeeda intaa kadibna Ruus walaasheed waxay ayada u sheegtay in xafladda dhalashada wiilkeeda ay dhacayso berrito sidaa darteedna waa inaad timaada oo aad ka soo qayb gashaa xafladda Ruusna waxay ayada ugu jawaabtay in shaqo badan ay u taalo ayada sidaa darteedna waxaa laga yaabaa inaan imaan waayo berrito intaa dabadeedna Ruus walaasheed waxay ayada u sheegtay inay iibiso guriga hooyadood sababtoo ah wuu bannaan yahay waxaana laga yaabaa inuu baaba'o haddii aad iibisana lacag badan ayaad ka heli doontaa laakiin Ruus waxay iska diiday arrintii loo soo jeediyey waxayna sheegtay in gurigan uu qaas u yahay ayada sababtoo ah carruurnimadaydii oo dhan ayaan ku soo qaatay gurigaas sidoo kalena gurigan waa xasuustii ugu dambaysay ee hooyaday waqti badan ayaana halkaa kula soo qaatay hooyaday markay walaashay naga tagtay kadib si ay nafsadeeda u hormariso oo ay ayada iskaga fikirto si kastaba ha ahaatee maalintii xigta waxaa isbitaalka yimid Roos saaxiibkeedii booliska ahaa wuxuuna halkan u yimi si uu ula kulmo ayada sidoo kalena wuxuu rabay inuu la hadlo ayada laakiin Roos way u xanaaqsaneed asaga sidaa darteedna ma aysan rabin inay la hadasho asaga intaa dabadeedna markuu goobta isaga tagay Roos waxay bilowday inay akhriso waxyaabihii uu dhakhtarkeeda ka qoray Laura taasoo ugu dambayntii ay dubbo ku dishay asaga markay warbixintan akhrinaysana waxay ogaatay in dhoola caddayn aad u weyn ay ka soo muuqatay wejigiisa dhakhtarku intuusan dhiman ka hor waqti badan oo ay wax baaraysa kadibna waxaa ayada soo wacday walaasheed markay taleefanka ka qabatana waxay aragtay qof taagan bannaanka hoose ee dabaqooda meel fogna ka soo eegaya ayada intaa kadibna Roos waxay u timid qofkii bukaanka ahaa meeshaana waxay ku aragtay ninkii bukaanka ahaa oo maanta faraxsan sidoo kalena aysan wax murugaa ka muuqan asaga Ruusna markay asaga u tagtay wuxuu bilaabay inuu ku celceliyo hadalkii uu horay u sheegi jiray kaasoo ahaa qof walba inuu dhimanayo isla mar ahaantaana Ruus sidoo kale wuxuu u sheegay in ayana ay dhiman doonto arrinka la yaab kalese waxay ahayd markuu ayada la hadlayo wejigiisa waxaa ka muuqatay dhoola caddayn weyn haddana si ay u xakamayso asaga waxay dalbatay caawinaad balse waxay aragtay bukaankii waalnaa oo fiicnaaday sariirtiisana jiifo arrintaana waxay la micno tahay Ruus wax walba oo ay ayada aragtay inay tahay mala awaal ay ayada sawiratay dhakhtarkii ayada ka sarreeyana markuu arrintan ogaaday aad buu ula yaabay habdhaqankeeda sidoo kalena wuxuu ayada siiyey fasax toddobaada si ay u soo yara nasato maskaxdeedana ay u soo dejiso markay gurigeeda u socotayna waxay aaday dukaanka si ay hadiyad ugu soo iibiso wiilka ay habaryarta u tahay intay dukaankaas joogtana waxay aragtay sawirka qoys dhammaantood dhoola caddaynaya markay hadiyadda guriga ku baakadaynaysana waxay heshay fariin oga timid ninkeeda taasoo uu ayada ugu sheegayo in guriga uu ka soo daahi doono asaga waayo shaqo badan ayaa u taalay asaga intaa kadibna si raaxa leh ayay cabitaan u cabtay isla markiina alarmiga guriga ayaa bilaabay inuu garaacmo aad bayna uga argagaxday arrinta sidoo kalena waxay xirtay albaabkii weynaa ee guriga intaa dabadeedna waxay aragtay albaabkii dambe oo furan isla markiina si halhaleela ayay u xirtay intaa kadibna waxay wacday sukuuradka waxayna u sheegtay wax walba oo meeshan ka dhacaya markaana sukuuradkii ayaa ayada ku yiri gadaal soo eeg intaa kadibna ayadoo cabsanaysa ayay gadaal soo fiirisay intaa dabadeedna taleefankeedii si lama filaana wuxuu u bilaabay inuu soo dhaco hadda ayuuna taleefankeeda si saxa u soo dhacay sidaa darteedna wax kasta oo ay Roos arkaysay waxay ahaayeen mala awaal ee ayada sawiratay intaa dabadeedna booliska ayaa u yimid ayada laakiin guriga waxba kamaysan helin intaa kadibna ninkeedii ayaa sidoo kale meesha yimi aad buuna uga xumaaday habdhaqanka foosha xun ee Roos dhinaca kalena Roos waxay rabtay in bisadeeda ay cunto siiso balse guriga oo dhan way ka weysay si lama filaana ayaana loo raadinaya ayada intaa dabadeedna markii habeenkii la gaaray way seexatay isla markiina way soo kacday sababtoo ah waxay aragtay riyo aad u xun sidaa darteedna habeenkaa hurdo oo dhan way ka soo dhici weysay intaa kadibna waxay bilowday inay dhegaysato codadkii laga duubay Laura kadibna waxay ogaatay Laura xaaladeeda inaysan caadi ahayn intaa dabadeedna waxaa jiray cod laga maqlaayay codka gabadha gadaasheeda isla markiina waxay bilowday in codka ay si fiican u dheerayso si ay si faseexa ugu dhegaysato si lama filaan ahna ruuxaantii hooyadeed ayaa u timid oo cabsi gelisay ayada intaa kadibna si degdega kursigii ay ku fadhisay ayaa ula dhacay haddana markay arrintan oo dhan aragtay waxay soo qaadatay midi si ay u difaacdo nafsadeeda dhinaca kalena ninkeedii ayaa meesha yimi markuu hadalkeeda maqlay kadib aad buuna u naxay markuu arkay midida ay gacanta ku haysato xaaskiisa maalintii xigtana Ruus waxay u tagtay dhakhtaradda dhimirka waxayna u sheegtay in daawooyin ay u qorto ayada si ay maskaxdeeda u yara dejiso sidoo kalena ay nasiino fiican u qaadato balse dhakhtaradii ayaa ayada ku tiri waa fiican tahay waxna ma qabti ee nasiinada badso intaa dabadeedna ayadoo niyad jabsan ayay halkaa ka soo laabatay kadibna waxay aaday dhalashada wiilka walaasheed waxayna ayada ula muuqdeen wax walba oo halkaa yaalla inay wanaagsan yihiin haddana wax yar kadib wiilkii yaraa wuxuu furay hadiyadii ay habaryartiis u keentay wiilkii yaraana aad buu u yaabay sababtoo ah bokiska waxaa ku jiray bisadii Roos oo dhimatay qof walba oo
xafladda yimi ayaana aad ula yaabay arrintaas intaana waxaa dheereyd Rose aad bay u sii naxday markay aragtay qof ka mid ah dadkii martida ahaa oo si saa'ida u dhoola cadaynayo asaga qof kalena lamuusan arkayn arrinta Rose oo kaliya ayayna ku koobnayd intaa dabadeedna gabadhaas waxay u soo dhawaatay ayada Rose-na si ay isku badbaadiso waxay bilowday inay gadaal u gurato intaa dabadeedna waxay ku dul dhacday miis dhalaa oo meesha yaalay burburka quraaradaha ayaana gacmaha ka galay Rose kaasoo dhaawacyo badan u geystay ayada qaybtii koowaad ee filimkeenana meesha ayay ku soo dhamaatay haddii aad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeena like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe dheh waad ku mahadsan tahay la joogistaada